السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشبكة dalka oo idin leh maalin wanaagsan fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkan isla markaana ku xiiso geliyay waxaan ku codsanaynaa in aad like inoo saarto si aan u soo badino isla markaana aan u ogaano daawadayaasheena in ay ka heleen muuqaalkan haddii ay jiraan talo tusaale fikir iyo weliba su'aalo waxa inoogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay matashay qaabkii ugu dambeeyay dawladii Islaamiga ahayd ee dunidan Islaamka ah ay taqaanay tan iyo markii ay soo ifbaxeen Islaamka iyo dacwadiisaba boqortooyadii Cusmaaniyiinta sidii dalalkii hore ee Islaamiga ahaa waxay gaareen guulo waaweyn kuwa oo ugu caansanaa waxa ay ahayd qabsashadii Constantinople ee loo yaqaan hadda Istanbul oo ahayd meesha kaliya ay ka talin jireen isla markaana ku xooganaayeen kiniisadleydii Orthodox-ka ahayd iyo caasimadii boqortooyadii Byzantine qadiimiga ahayd guuldarooyinkii soo gaaray reer galbeedka boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay ku guuleysatay inay ka adkaato isla markaana ay ahaato mid guud ahaan ka talisa bariga Yurub iyadoona istaagtay isla markaana joogtay irid waliba ay lahaayeen fiyaaniinta saameyntaasna waxa sii kordhinayay isla markaana wehelinayay ilbaxnimo iyo dib u soo nooleyn cilmiyeysan taasi oo la janqaadi kartay astaamaha awoodeed ee xilligaasi la soo ifbaxday dawladda Cusmaaniyiinta sidaa darteedna dawladdu waxa ay ahayd mid la janqaadi karta isla markaana heshay hanti aad u fara badan iyo balaaran kuwaas oo kamid ahaa qaaradihii Yurub, Aasiya iyo Afrikaba inkastoo ay sare u sii kacayeen guulihii ay gaareen boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxaana daba socday burbur kale sida uu sheegay qoraaga Ibn Kalsoon